wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Daahir Cusmaan ayaa kulan la qaatay wasiirka waxbarashada ee dalka Pakistan mudane injineer Maxamed Raxmaan. kulankan ay isugu yimaadeen wasiirada waxbarashada ee wadamada Pakistan iyo Soomaaliya ayay uga hadleen iskaashiga labada dal ee dhanka waxbarashada, tayeynta iyo horumarinta tacliinta, iyagoo sidoo kale isla soo qaaday deeqaha waxbarasho ee ay Pakistan siiso Soomaaliya. wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa Pakistan kala hadlay sidii Pakistan ay gacan uga geysan lahayd tayeynta waxbarashada Soomaaliya iyo sidii labada dal ay u samaysan lahaayeen iskaashi xoogan oo dhanka waxbarashada. dowladda Pakistan ayaa soo dhaweysay dalabka Soomaaliya, waxaana wasiirka waxbarashada Pakistan sheegay in ay diyaar u yihiin in ay Soomaaliya ka caawiyaan dhanka waxbarashada, isagoo sidoo kale sheegay in ay jiraan boqolaal arday Soomaaliyeed kuwaas oo Pakistan ka barta noocyada kala duwan ee cilmiga. ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata Pakistan ayaa ah kuwa sumcad wanaagsan ku leh dalkan, waxaana wasiirka waxbarashada Pakistan ammaan u jeeday ardayda Soomaaliyeed, isagoo sidoo kale sheegay in ay jiraan aqoon-yahano Soomaaliyeed oo Pakistan horey wax uga bartay kuwaas oo maanta ka shaqeeya dunida dacaladeeda, taasoo uu sheegay inay sharaf weyn u tahay dowladda Pakistan. dhanka kale Soomaaliya waxay xubin ka noqotay markii ugu horeysay guddiga horumarinta sayniska iyo tiknoolajiyadda ee loo soo gaabiyo COMSAT, oo ah guddi ay ku midaysan yihiin 27 dal oo adduunka. 27 dal ee ku midaysan guddigan ayaa isdhaafsada aqoonta dhanka PhD-da iyo masterta, waxayna sidoo kale wadaagaan research centerada ama xarumaha cilmi baarista. heshiiska ay Soomaaliya uga mid noqonayso guddigan ayaa waxaa saxiixay wasiirka waxbarashada Soomaaliya mudane Cabdi Daahir Cusmaan, halka dhanka ururka uu saxiixay madaxa fulinta Maxamed Junay Sayidi. wasiirka waxbarashada Soomaaliya waxaa kulankan ku weheliyay safiirka Soomaaliya ee Islamabad Marwa Khadiija Maxamed Al-Maqsuumi, xogayaha koobaad ee safaaradda Soomaalida Cali Sheekh Cabdullaahi, iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir. wasiirka waxbarashada Soomaaliya wuxuu sidoo kale kulan la qaatay qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata Pakistan, wuxuuna kala hadlay muhiimadda waxbarashada iyo inay ka soo dhalaalaan wixii ay u yimaadeen dalkan. waxay tahay in aad horta iloobin sababta meeshaan ku timaado, taasoo ah kow laba saddex afar inaad halkan timaadaan wax barataan aqoontiina ku xisaan aad noloshiina ku bedeshaan markaad halkan ka laabataan. taas waa muhiim. intaad meesha joogto waxay la tahay aniga ama meel kastoo aad joogtaan inaad dhaqan fiican la timaadaan oo bini aadan ixtiraam leh, dadkan ixtiraamo, idinkana laga barto wax fiican inaad noqotaan. taasi waa muhiim. taasna waxay u keenaysaa sharaf qof kastoo Soomaaliya. kulankan dhex maray wasiirka waxbarashada Soomaaliya iyo ardayda Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay guriga safiirka Soomaaliya ee Islamabad, waxaana safiirka Soomaaliya Marwa Khadiija ay goobta ka sheegtay in ardayda Soomaaliyeed ay yihiin kuwa nadiif ah oo ka soo dhalaala aqoontooda, iyadoo sidoo kale u dardaarantay dadaal iyo dulqaad. مع الوزير وحربة أرضية سوماليا دمان باكستان جوجتو halkan horta waxa u maadan waxbarasho dhamaantood dhanka waxbarashadan aad ay u saayaan alxamdulillah. wadamada kale qaarka oo ardayda xabiso ama jeel ama dhibaatooyin kala geersiis sameeyaan ardayda Pakistan alxamdulillah waxaas way ka badbaadeen dad isku xiran oo yaqaan danahooda إن شاء الله نحرجينا مر والبا ساسين كسودان. qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee kulanka ka soo qayb gashay ayaa wasiirka su'aalo weydiiyay, iyadoo wasiirka iyo mas'uuliyiintii kale ay uga jawaabeen su'aalahooda. Durraan Xasan, Islamabad.